السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيلك جوجتان ومهدسنتهين الله يذ بركاته. وحرب أنا كعشة قصيرة آدي أضيع بدن أو معجزة هي آيات مرك الله فيريو آد أكوبا لكن آيات شيطان وليبا نوع مارد كله يقان كجو هيسو بربريسو ترترتين آيات داس وآية معجزة وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي كجرتو آد أكوبا لكن سيدا أي قاتلة أتهي وليبا عدوغا شدادين تا أي قاتلة أي أتهي آذان إنبا مريسان كرينين هذا كهر وحرم قصة مركان كاغا شيكينايو inay ku noqoto tusaale inay ku noqoto daliil inay aad u aragto in shaydaan iyo wixii ka yimi oo daciif yahay si kasta u xanuunsan tahay iyo si kasta bala ku hayso iyo si kasta u dhiban tahay waxaad aamintaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu yahay kitaabkiisu midka tirtiraya si kasta aad u dhiban tahay adiga ma aamini kartaa aayadda aan ku sheegi doono inaad qalbiga intaad ku gunudo kadibna aad laazimto يعني هذا الكلام وحبك أجا هربا أنا هذا كهربا وحقيقي يمي هاي الصومالي والحنوسن أدو دبن هاي ده وحكاها الله إلا با جن باكها الله يو لما ده جن من نوع عرفيت من نوع مارد عرفيت كو قرآن كون هو الشيء يو وكو أود بدن السجان السحر كجرك كل حسامي يو أود الحولي يسوع الشيء يو إنه يسوي السحر كجرك كل حسامي يو ويساقو uu yahay ka sixirka sameeyaba maaridkana uu yahay mid sixirka loo soo dhiibay oo isagana jirka sixirka ku dhaxayo sixiradaas gabadha muslimada haya ama hooyada Soomaaliyeed haya way la dhiban tahay gurigeeda heer wuxuu gaaray in iyadii ninkeeda warqada loo kala qoro qarka ay u fuushay dhinacay dhulka dhigtay wayna xanuusatay wayna dhibtootay علاماتها جيركا وحاونادنا ay ku sameeyeen waxa kamid ahayd midaal gacantaas oo kale waxaad u maleynaysaa halkaas oo kale in inta mudac hoos laga soo galiyo mudac qofkii yaqaan ama irbad inta hoos laga soo galiyo meesha markii intuu nabar soo mudo nabarku sabanaanka u soo bixin meesha way guntantaa yani waxay sameeysataa si kale hadaan u dhaho bar adu mana sida banti ay guntantaa adu maleynaysaa gabadha jirkeeda oo dhan hooyada jirkeeda oo dhan say ii sheegtay daaniga inta baan ka arkay أنا عورات كهين وحدو ملايسا مركا وحيقول تري جيركيغا دم واساس ميل مجرتي تري جيركيغا إلا وحي تري واتبتاس نينكا هلا مركا وحوليه أنا سميي أو يعني جيركا ماردكا أنا سميي يري جيركا أيانا كل حياة سحركا وأنا لي ديبو وحيسو ديبي كي أنا عرفيتك وانا صادري وحانا قلت لك قال لي إنا يسنككعن أو سحر الموت إنو نقضو قضبك لبدا كانوا حانا قلت لك قال لي إنا يسنبالين gabadheedu waxaan u maleynayaa waa 6 bilood iyo waxaan ka wada 5 sano mise 6 sano iyo abaf waa horta 5 sano waa dhaaftay hooyadan marka dhibta haysata hurdo male oo cunto male oo ninkeeda ma isfahmaan oo nolosha ay ku nooshahay iyo rafaadka ma maleyn kartid naqaska ku dhigayo yaani qof bilo aadana inta cudur haysto oo dhanba hooyada haysata jirkeeda balaya isku eriyanaysa yaa waxba hadal kugu daalanay gabadhii baan hooyadii Soomaaliyeed baan quraan u bilaabay hooyadii markii quraanka aan u bilaabay oo hooyada quraankaas aan u bilaabay waxa hadlay jinka cirfiidka oo maxay ahayd hooyadan sixirkeeda ku jira hadalada dhaxmar waxa kamid ahayd waniyo aan kula shaqeeyo aniga awood baan leeyahay jiban dhan baa ii shaqeeyo ninka saaxirkana gabadha waa la kari waayay muddo badan la daba socdaana hadda la soo adeejiyay gabadhana waan dilaya wax laga qaadi karana malaha maxay ahayd awood wuxuu sheegtay adiga غير العادي anigana waxaan ku dhahay halkan aan fadhiyan ku wareysay anigana waxaan ku dhahay awooddaada waa daciif ilaahay baan ii sheegay waxaan ku ballan qaadayaa baan ku yiri in anigana ku tirtiri doono ku cadaabi doono jibankaagana aan leyn doono meeqa jin baa gabadhan ku jira ma la tirin karo maaridkaas kamid oo yiri oo kamid ciidamadayda oo sixirka qaybta ay haya ana qaybta makaanka inaysan dhalin baan haystaa sixirka markuu ka burana ana u sameeyo adii waxba hadal kugu daalnay waxyaala dhaxmar waxa kamid ah aan kula shaqeeyo oo umada aan ku keeno oo aniga aan ku soo horgufo shaqeynana dhaxmarto maxay ahayd dhibta iga daa wax laga qaadi karaa aniga mal ilaahina ma ba qoonsanaybo de kibirka ka muuqda iyo qaabku u hadlayo
xataa dumarka markii gabadha waxaan ku soo degtaan dumarka intay ka dhex kacdo bigees fariisanaysaa warana naagaha ma dhex fariisto boqor baan hay waan taliya adduunkan ka taliya cid walba ii sababa ma malayn kartid dee waa daciif waxaa markaa rabaa dad badan sheekada markaan ka sheekeynaya dad fara badan oo qalbiga ka jabay oo le waxaan igama tegaya shadaadiin inaad ku tusaale qaadatay inaysan waxba ahayn hooyadaas Soomaaliyeed aayadana u laazimay marka laba aayadood baan u laazimay midda koobaad waxay ahayd wa xifdha min kulli shaytaanin maarid aayadda hadda kuu soo muuqatay aayadda hadda aad aragto ee kuu muuqato ma aamini kartaa waa aayadda shaydaankii maaridka ahaa kaga oohisay sixirkiisiina tirtirtay maalmaha ka mid ah waxaan sameeyaa inta badan qofka markaan quraanka saaray dadka aadka u daran waan reebaa 5 6 7 isku reeb kadibna quraan fara badan oo ay dhibsanayaan baan ku celceliyaa aayadaas taqriiban waxaan ugu celcelinayaa ilaa 40 daqiiqo haddaysan hal saac ba gaaraynin horta maalinta hooyada nabarkii ka fuqay ilaahan baa markhaati ka subxaanahu wa ta'ala aayadaas ayaa waxaan ku bar iyadana waxaan ku iri aayadda markaad guriga tagtana ku celceli maalintii dambe ayaa hooyadii soo laabatay waxaa markaa ka dul hadlay cirfiidkii maxay ahaayeen cirfiid iyo maarid cirfiidka markaa hadlaya wuxuu yiri ciidamadeeda waa baaba'een awoodii aan sheeganayayna waxa weeye waa maaragtay qayb badan baa dhuntay waxa weeye waxaana idilay buu yiri oo shadaadiinteedii baabiyay waliba qaybta cirfiidka waxaa baabiyay aayadii waxaad akhrinaysaa ila soo ma amsan waqti wuxuu leeyahay yani aayadda ku muuqato wuxuu leeyahay waxaad akhrinaysaa ayaa baabiyay sixirkaygi ka waa buray oo waa dhinteen maxay ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'ala de hoog iyo halaag buu horta halka uu kaga riday wuxuu yiri marka maalintaas buu dabarqay intii wuxuu yiri intii dhinamadena oo yani ka dhinayd wuxuu yiri iyada ayaa dabar jartay aayadii bay ku celcelisay iyadana marka waa weydiiyo inta badan talooyin baan siiyaa marka waxay sameysay hooyada khayr badan Allah siiyay miskil aswad iyo zaytuun bay isku dartay jirkay marisay kadibna waxay tiri aayadii baan ku celceliyay gabadha waxay tiri hal mar waxa u malaysaa korkayga qodxan isaga marka bidabdi hadal kalaam buu yiri sixirku wuxuu ahaa sixir masaabiir oo yani lagu sameeyay oo jirkeeda inuu saa ugu turqanaado waxay tiri marka gabadha waxa u malaysaa aayadii markaan akhrinayaba in laga siibayo maxay musbar hooyadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha sharfo sidii bay ku caafimaaday ilaahayna caafimaad taama oo alla ku siiyay shadaadiintana sidii bay ku baaba'een ilaa haddana dadaalkii way wadaa anna waa la wadaa waxa maaragtay u dhiman waxaan rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhameystiro qisada waan sii wadi doonaa qaybta labaad baan insha Allah ta'ala si clipkuusan u dheeraanin oo idinku daalin ayaan sii gudbin doonaa bishaarada kale u weyn baan idin hayaa iyadana insha Allah ta'ala hooyadii iyo sida xaalkeeda uu yahay iyo maaragtay markii shadaadiintaas ay dhinteen uur ma yeelatay mise maysan yeelanin maxaa ku haray iyo calaamado kale oo fara badan baan insha Allah ta'ala soo tabin doonaa haddii Allah hawada uu idmo waxaan rajaynayaa biidhnaahi ta'ala inay tusaale ku noqon doonto aayadaas ku celceli aayadda umad fara badan ba ilaahay caafimaad taama ku siiyay marada badan ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala marada shaadiin ilaahay ku tirtiro ku baabiyay adigana ka mid noqo insha Allah ta'ala aayadda dadka laazimi doona aad iyo aad baan u mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala haydan barakeeyo وإنه يو قيبتنا لبعض إن شاء الله.